sharciga shidaalka ee toddobaadkan ay ansixiyeen golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya qodobkiisa 9aad waxa uu sheegayaa inay waxba kama jiraan tahay heshiisyada shidaalka ee ay saxiixeen maamulo ka jira qayb ka mid ah Soomaaliya ama dawladihii ku meel gaarka ahaa muddada u dhaxaysa December 1990 ilaa September 2012 qodobka 9aad shirkadaha batroolka horay uga haystay heshiis dawladda Soomaaliya dhammaan heshiisyada la xiriira batroolka ee lala saxiixday maamulo ka jira qayb ka mid ah dalka ama dawladihii ku meel gaarka ahaa muddada u dhaxaysay December 1990 ilaa September 2012 waa waxba kama jiraan dhammaan heshiisyadii ay wada saxiixdeen shirkadaha ajnabiga iyo dawladda Soomaaliya wixii ka horeeyay 1990 waxaa loo tixgelinayaa inay yihiin heshiisyo jira iyagoo tixgelin wanaagsan la siinayo in sharcigu uu baabi'inayo heshiisyo ay hore u galeen dawladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Somaliland, Puntland iyo Galmudug oo dhammaan qandaraasyo la saxiixday shirkado ajnabi ah inta u dhaxaysa 1990 ilaa 2013 dawladdii uu hogaaminayay Shariif Sheekh Axmed shirkad lagu magacaabo Tembo Petroleum ayaa sanadkii 2012 waxa ay gorgortan la gashay madaxweyne Shariif Sheekh Axmed iyada oo doonaysay ceelal shidaal oo ku yaala Jubbaland lama oga inuu saxiix dhacay laakiin wada hadalka xilligaasi waxa uu gaaray meel fiican Somaliland waxa ay ilaa iyo hadda saxiixday 4 qandaraas oo shidaal laga soo bilaabo sanadkii 2008 ilaa iyo 2013 shirkadii ugu dambeysay ee heshiiska lala saxiixay waa tan Yemen laga leeyahay ee magaceedu yahay Ansan Wefis taasi oo la siiyay ceelasha kala ah 14aad 15aad iyo 7aad waxayna bixisay 1.8 milyan oo dollarka Mareykanka oo canshuur ah shirkadaha kale waxaa kamid ah Kenal Energy PLC Rag Gas LLC oo laga leeyahay Imaaraadka tan Oslo Norway ku taala ee DNO International ASA iyo mid Shiina laga leeyahay oo macdanta qoda heshiiskii shidaal ee ugu horeeyay waxa ay Puntland saxiixday sanadkii 2005 kaasi oo lala galay shirkadda Range Resource taas oo markii dambe heshiiskii loo balaariyay lagana dhigay mid wax soo saar sanadkii 2007 halkii markii hore uu ahaa baaris oo kaliya markani waxa bahwadaag la noqday shirkadda kale ee Camex oo laga leeyahay jasiiradda Bermuda ee Canada waxa kale oo qandaraas kale ay la gashay shirkad laga leeyahay dalka Mareykanka oo lagu magacaabo ION si ay u sameeyso sahan xagga badda ah una soo ururiso macluumaadka kheyraadka shidaalka ee gunta badda ku jira xilligii madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole waxaa jiray safarro uu maamulkiisu ugu baxay Mareykanka iyo meelo kale laguna saxiixay heshiisyo ay ka mid yihiin warshada sifaysa shidaalka Galmudug shirkad fadhigeedu yahay dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Liberty Petroleum oo ay leeyihiin 2 nin oo walaalo ah midkoodna uu markii dambe uu xildhibaan ka noqday aqalka Congress-ka Mareykanka oo lagu kala magacaabo Trent Franks iyo Len Franks ayaa heshiis shidaal la saxiixday madaxweynihii Galmudug Cabdi Cawaale Qeybdiid bishii Febraayo sanadkii 2013 heshiiskani meesha lagu galay shirkadda waxaa horay dawladdii Siyaad Barre ay ugu saxiixday shirkadda Shell ee Holland laga leeyahay